dhawaada maanta waxaa rabaa inaan idin sharaxo waxa laga wado kala wareeg ama shift waxa la dhaho shift ama kala wareeg akhiirta waa inaan idin qora koodi kala wareeg ama shift okay marka horta marketka waa isla fahanay in markuu kor u socdo oo subsado higher highs iyo higher lows higher highs iyo higher lows iyo higher highs iyo higher lows saan u socdaa markuu hoos rabo inuu aadane ama hoos u socdo marketka wuxuu u socdaa lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower low waa isku raacna ma ah soo ma marka maxaa laga wadaa shift waa marka marketka oo hoostan u socdo ama hoos u socdo lower high u dambeeyay waa inta lower high u dambeeyay waa inta halkan lower high u dambeeyay waa korsar top okay lower low u dambeeyna waa kan ama hoosaadka u dambeeyay waa kan lower low kan bottom there okay marka marketka mar walba hoos miskaaga soconayo infant kor ayuu aadi karaa markuu marketka hoos u socdo muddo oo rabo inuu kor aado cadeynta ugu horeyso aad dareemayno inuu marketka kor u bilaabi rabo maaragtay kor cusub bilaaban rabo waa in lower high hore laga kormaraa jir ahaan ama body ahaan maaragtay candle stickska inuu body ahaan kor ugu xirmo waa xariiqada ma ah body oo guduudka ama buluuga inuu kor ku xirmo waa okay saas markuu kor ugu xirmo markaas waxaan dhahaynaa meeshaan shift ayaan dhahaynaa shift ayaa ka dhacay waa maaragtay shift ayaa ka dhacay meeshaas aan dhahaynaa marka anaga hadda waa dareemoynaa markuu shiftigan dhaco in maaragtay marketka uu u baahan yahay higher low ama nasiino yar oo higher low oo lagu magacaabo si higher high cusub u subi meeshaan waa meesha aan anaga trade ka galayno oo marketka aan ku buy gareynayno saan u soo laabanaa saan u soconaa haddana meeshaan example higher high markuu subiyo higher low haddana buy kala qaadan karnaa haddii oo cadeemaheen aan helno saas u soconaa marka dadka badanka waxay subiyaan waxay dhahayaan linesaan subsanaayo dhahayaan suuqa waa hoos u socda waa salgareynaynaa dhahayaan saana marka ku salgareynaya meelahan ka salgareynaya markay meelahan ka salgareeyaan waxaa dhacayso waxaa dhaca isu hoos u leeyahay salka log ma igeli okay oo shaqey leeyahay waa aqaan wuxuu dhaca refresher waa malaha marka meeshaan ay shift meeshaan ay sell ka galayaan anagana markaas stop losskooda qaadanaynaa saasaa faa'iido kusoo binaynaa sababtoo waa ognahay suuqan oo kor geenayo linekan aniga ma isticmaalno waxaa isticmaalnaa price action suuqa caadiga falanqeynaa fahanta marka example tusaale labaad waa markii oo maaragtay suuqa cabaar kor u socdo oo rabo inuu hoos bilaabo waa higher high higher low marketka wuxuu subin doonaa higher low hore ugu dambeeyay ayuu ka hoos mari doonaa body ahaan ugu xirmi doonaa hoostiisa kadib waxaa sugaynaa nasiino yar oo lower high kadib saas ayaan hoos ugu raaci doonaa aan ku salgareyn doonaa marka tan waxaa waaye shifti aan lahaa shiftigana waa markii oo maaragtay marketka kala wareegiisa markaad dareemaysid marka ugu horeyso cadeynta ugu horeyso waa aad dareemaysid inuu kala wareeg dhaceeyo oo maaragtay waa kaas okay trendka marka shiftigan suubiyo kadib waxaa lagu magacaabaa uptrend shiftiga markuu suubiyo uptrend waa shiftigan markuu suubiyo higher low ka hoostiisa ku xirmo waa downtrend waa infaantina khayrta inta example suuqa marka lower high subsanaayo waa downtrend
laakiin marka lower high-gan laga kormaro hoos korkiis lagu xirmo waa uptrend oo isbedele shift yaa dhaca waa la isbedele markii cabaar higher low higher high u socdana waa uptrend oo kor u socda laakiin markii higher low-gan laga hoos maro waa shifty downtrend waaye trend cusub baa bilowday ama jiha cusub baa bilowday okay marka iyadoo waxaa idin tusaa marka oo chartiga caadiga ah suuqa caadiga socdo ay idinkugu tusi doonaa tusaalayaal okay intaa kasoo bilaabna tusaale inta sida ujeedid suuqa lower low lower high lower low shift ayaa dhaca higher high cusub baa bilowday laakiin unfortunately haddana shiftiga waa isbedelay lower low cusub lower high cusub lower low cusub baa bilowday lower high-gii hore ugu dambeeyey aa la qaaday laga kormaray korkiisa lagu xirmay jir ahaan boodi ahaan sida ujeedin waxaa dhacday marka higher low inuu subsado oo trendkii isbedelo aniga meeshaan aan marka meesha baayiga xag ka qaadanayna waa trendkii waa isbedelo higher high kale higher low kale haddana mar labaada meeshaan ka qaadan kartaa haddii calaamadaha oo trendka lagu qaata ay haystid higher high higher low kale sidii oo suuqa ku tegay soo arkaysid alaha waa iska wax yar yar oo higher high higher low loo xisaabi karin higher low higher high okay marka sidaas oo ku socday suuq hadda meeshaan u marooya marka aan ku geyno aan ogaano trendka iyo wuxuu yahay suuqa higher high markuu higher high ahay waxaa dhacday higher low inuu subsaday higher high cusub subsaday oo ka kormara kulli laakiin nasiib daro hoos oo ku xirmay higher low-gan uu qaaday macnaheedu waxaa waaye trendku waa isbedelay shifti aa dhacay oo sal baa dhici rabo okay sida ujeediin sorry markii ay dhacday lower low cusub xoogaa yar meeshaan dhexda ku noqnoqday marketka kadib waxaa dhacday in maaragtay elbow yar elbow laakiin suxul oo baran doonaa in maaragtay oo lower low cusub subsado lower high waa kana dambe waa kana haddana dhexdoo iskaaga baashaale kadib haddana maaragtay lower low cusub lower high cusub lower low cusub aa dhacday hadda marka suuqan intuu maraya waa intuu maraa wuxuu maraa akhiiray haddii cilmi leedihiin ama waxaa soo fahanteen stop qabo ee sheeg suuqan uptrend miya ama downtrend waa example hadda meeshaan waa lower high u dambeeyey lower high u dambeeyey waa meeshaan aa ujeedidna waa lower low u dambeeyey haddii aa fahantay lower low u dambeeyey marka suuqan ma uptrend ama downtrend suuqan waa downtrend sababtoo ah boodiga mujida lower low u dambeeyey boodiga jirka ma laga hoos marin jir kale hoos ma jibinin waxaa dhacday bas xariiqado weeks alla kuwan weekskan inuu meeshaan taabtay oo ka kaca weli ma arkin wax oo toos oo ugu xirmay meeshaan hoostiisa iyo weli ma arkin wax korkiisa ku xirmay macnaheedu waxaa waaye lower high lower low suuqa weli waa downtrend waa hoos u socdaa marka waxaa sugaynaa ilaa iyo meeshaan oo ku jibiyo si oo uptrend u noqdo suuqan oo kor ugu socdo haddii marka waxaa kale oo macquul ah inuu subiyo in maaragtay lower low cusub subsado kadib kan qaado oo lower high noqdo kan qaado kadib maaragtay higher low higher high saas ku socdo marka jihada suuqa sidaas ayaa loo ogaadaa maaragtay wax oo saa'id u dhib badan ma aha marka akhiiray waxaa jirto arrimo yar oo elbow wax la dhaho iyo waxyaabaha example tusaale markuu suuqa higher low higher high u socdo saan marmarka saana dhici karto saan inuu suuqa socdo higher low higher high okay sidaa ujeediin markii saan ay tahay maaragtay kan marka la jibiyo kadib ayaa waxaa dhacaysa markaas anaga raadin doonaa maaragtay higher low u dambeeyey higher low kan higher low ma noqon doono sababto ay kanaa ka dambeeyey marka kun jibiyo kanaa higher high noqon doono sidaa ujeedid kanaa higher high noqon doono kanna wuxuu noqon doonaa higher low u dambeeyey previous higher low higher low u dambeeyey kan ma aha kan awood ma laheenin momentum awood leh oo kan jibiyo ma laheen
higher high dambe cusub oo macnaha higher high jibiyo ma lahayn so wax yar oo nasiina qaatay higher lowgan waaye marka kan awoodda lahaayay oo awooddaas oo ku jibiyey higher high dambeeyey ugu dambeeyey marka taas macnaheedu waxaa waa higher high cusub kana noqonaa higher low cusubna kan ayuu noqon doonaa oo ma noqon doona kan oo kale hadda suuqan kan ma u baahno sababto ah higher low kan oo noqon doonaa sababto ah kan aaba jibiyey kan fahanta kan higher high cusub oo noqon doonaa kan wuxuu noqon doonaa higher low ugu dambeeyey oo noqon doonaa marka qorshaha trade yaraa jiro iyadoo buy iyadoo sell way dhici kartaa inaad sii fahantid hadda lagaa rabaa example lower low lower high ma aha sug weliba dhihi karno ma jibinin awood ma laheenin kan dambaa marka waxuu yeeshtay awood oo ku jibiyey kan okay tan maxay tahay macno tahay in kan aad dhihin doono lower low dambeeyey sababto ah isagaa lahaay awooddii oo maaragtay lower low dambeeyey lower high dambeeyey waa kan isagaa lahaay awoodda lower low dambeeyey lagu jibiyo maaragtay kan wuxuu noqon doonaa lower low marka marmarka qaar saas ay dhici karto marka inaa la qabsi kartaa lagaa rabaa waqti walbo iyo xaalad walbo inaa sida loo akhri lahay marketka okay marka waxaa jeclaan lahay akhaare inaa fahanteen wax walbo oo arrintan ah waxaa kale idinkugu dari doonaa EMA wax la dhaho EMA waa indicator caddeynayo maaragtay sida support iyo resistance oo kale aan u isticmaali doono anaka marka hadda inaa ila soo geshatiin isku daya EMF okay indicatorskan tagay markaad tagtid aad click gareysid favorites-ka wax ma ku jiro waxaa qori doonaa moving average exponential moving average exponential waa kana kan aa xidig saaran doontaa kadib waa ku dhufan doontaa click aa ku siiyey waa ku dhuftaada sigbal isticmaal okay error yaraa jiro ama refresh aa jira laptopka idinka caadi waa saam idin qabsan kartan fahantin akhaarta marka ayaa lagu walwalay okay mar labaad taabanable indicatorska okay moving average exponential waa taabtay waa kana moving average-ka waa bedeli doonaa marka waa saam markaa dhahayd waa ag tegi doontaa isha waaye hide waaye qari waaye mida ma qarinaysid waa fure kadib meeshaana waxaa ah settingskana tegi doontaa kadib inputs aad tagay kadib meesha 9ka ayaa conton ka dhigi doontaa conton oo isbedeli doonaa mudda markuu isbedelo marka taas macnaheedu waxaa waaye hadhowtii maaragtay waxaa sii doonaa 5% markii maaragtay anaga aa ka qaadanayna trade-ka agagaarkan oo marketka maaragtay rejectionka EMA-ga taabanayo waxaa waaye rejection waaye rejection aa ku magacaabnaa marka inta EMA taabanayo EMA-gaas waxaa sii doonaa 5% oo confluence confluence-yaasha aa baran doono 5% ayaa sii doonaa waa aad iyo aad u muhiim tahay mar walba waxaa la rabaa marka anaga aa ku darsanan tusaale ahaan in ma aragtay oo taabanayo saa camal taabanayo fahamta inuu kor ku xirmo ama kor hoos ku xirmo maaha inuu taabanayo lebis markaas fiir hadda example oo jibiyey kan oo taabtay kor u kac mujida hoos oo soo maray markuu ka hoos maray oo taabtay haddana hoos u dhac mujida xoogaa waxaa waaye confluence fiican waaye oo maaragtay strategigan waafaqayo waa sida support iyo resistance oo kale oo qolqoloocan waa EMA lahaa ama moving average exponential insha Allah marka soo baxsada waa 5% confluence oo xambaarsan yahay fahantaa hadda marka waxaa soo baranay trendka soo baranay weekly trendkiisa marka analyze gareynaysid example marka analyze gareynaysid weekly karaal noqdo qowqacda yar subxaana dabaq iyo koreeyo weekly waa 10% oo maaragtay confluence
markuu yahay buy ama sell. Daily-gana waa 10%, 4 hour-kana waa 10%. marka waxaa lagaaga baahan yahay saddexdood inay iswaafaqaan oo buy ku wada sheegaan ama laba ka mid ah ee buy ku sheegto maaragtay hal xabo oo kaasoo horjeedo. laakiin haddii laba maaragtay ee buy sheegayso oo hal xabka sell sheegayo oo aad sell aad dhahdo kale hal xab aad raacaysaa laba kaasoo horjeedo, taasna waxaa waaye khasaaro weyn waaye. waxaa lagaaga baahan yahay kulli inay iska wada raacaan ama laba ka mid ah time frame meeshan waaweynka inay isku kaa raacaan. taas maskaxda ku haya. cool. okay, halahan waa soo baranay oo 4 hour daily. okay, marka waxaa jiro maanta baranay EMA waa 5% isagana insha Allah adiga si fiican waa u fahmi doonaa marka maaragtay toos aan u wada galno maaragtay marka kulli isku wada geynayno kale. shiftiga hadda aan soo baranay xitaa kaas markii aan ka helno daqiiqadaha yaryar isagana waa confluence, laakiin waa gaari doonaa entry signal lahaa waa gaari doonaa kaas. markaad waxaa maroonaa 30%, 35% waa baran already insha Allah. marka inta kalena waa baran doonaa maaragtay waa kasaa.